Indhasarcaadiyaha lagu magacaabo Tamba waa indhasarcaadiye lagu naanayso doofaarka dhulka maxaa yeelay wuxuu cunaa wax walba. Waana indhasarcaadiye ka soo jeeda dalka Japan kaasi oo ka yaabsaday dadka asigoo adeegsanaya xeeladooyinkiisa gaarka ah. Muuqaalkan ayaa idinkugu soo bandhigi doona xeeladaha ku duwan qaar ka mid ah indhasarcaadiyaasha uu soo bandhigo Tamba iyo indhasarcaadiye kale. Waxaana ka mid ah indhasarcaadka koob biyo lagu shubo oo aysan jirin wax celin ah, iyo indhasarcaadka ku istaagitaanka hawada, iyo indhasarcaadka laqitaanka sakiinta kadibna caloosha laga soo bixina. balse intaana muuqaalka bilaabin like saar si ay ogaano dadka daneynaya muuqaaladan oo kale. Indhasarcaadka koowaad, koob biyo lagu shubo oo aysan jirin wax celin ah. Indhasarcaadiyaha ayaa marka hore koobka qabana waxaana ku shubaa biyo, kadibna wuxuu sii deynaa koobka ayadoo aysan jirin wax celin ah. Ugu horeyn aan idin tusaaleeyo. Dabcan indhasarcaadkan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu caansan, ayadoona indhasarcaadyaal badan ay sameeyeen, laakiin qaarkeen ma ogo ilaa hadda sirta ku dugan indhasarcaadkan. Haddaba waa maxay sirta ku dugan indhasarcaadkan? Sirta ku dugan waa isla koobka. Indhasarcaadiyaha ayaa koobka wuxuu gudaha ugu soo xiray cirbad ama wax ka samaysan bir oo sidaan ah. Kadibna wuxuu ku xiriiriyay dun, wuxuuna afka ugu soo xiray meesha uu sharaabka ka shubaa. Waana sidaas waxa celina koobka. Waxaana waajiba in dunta iyo sharaabka isku midab yihiin. Sidoo kale qamiiska iyo dunta ayaa isleh, marka cidna ma dareemayso dunta. Waxaad arki kartaa dunta oo ku xiran afka hore. Indhasarcaadka labaad, indhasarcaadka lagu istaaga hawada. Indhasarcaad la yaab leh. Indhasarcaadiyaha ayaa indhasarcaadkan ku soo bandhigay maslaxa dhexdiisa, asigoona ka yaabsaday jamaahiirta oo dhan. Sirta ku dugan indhasarcaadkan ayaa ah, indhasarcaadiyaha wuxuu ku istaagsan yahay bir, taasoo ku xiran lugtiisa bidix, waana mid lagu xiriiriyay ilaa dhabarkiisa. Dabcan birtan waa mid lagu qariyo dharkiisa si xeeladeysan. Sidoo kale waa mid ku xiran kabaha uu wato indhasarcaadiyaha. Daawo muuqaalkan gaaban kaasoo noo cadeyna indhasarcaadkan qaab fudud oo qosol ku dheehan yahay. Indhasarcaadka saddexaad, laqitaanka sakiinta. Indhasarcaadkan ayaa ah mid cajiib ah kaasi uu sameeyay indhasarcaadiyahan lagu magacaabo Tamba. Ninkan ayaa soo qaatay dhowr sakiin, waxaana laga tijaabinaa inay yihiin sakiimo dhab ah. Kadibna wuxuu bilaabaa laqitaankooda jamaahiirta oo dhan oo daawanaysa. Waxaana uu kasii daba geynaa suuf badan, wuxuuna kasii daba cabaa sharaab si loo arko inuu laqay. Kadibna wuxuu bilaabaa inuu afkiisa ka soo saaro dhammaan sakiimihii. Indhasarcaadkan waa mid la yaab leh, balse waxaa idiin hayaa sirta ku dugan indhasarcaadkan. Ugu horeyn markii uu indhasarcaadiyuhu afkiisa geliyay sakiintii ugu horeysay, ma uusan laqin sida aan moodeyno, balse wuxuu adeegsaday xeelad ah inuu sakiinta ku qariyo dhanka bidix ee afkiisa. Sababta uu meesha u geliyay ayaa waxay tahay, ma u muuqanayso daawadayaasha haddii uu xitaa carabkiisa soo bixiyo. Markii uu indhasarcaadiyuhu cabaa sharaabka yar ee casiirka ah, uma cabayo inuu sakiinta ku sii laqo, ee wuxuu cabaa inuu ku soo rido koobka gudihiisa sakiimihii uu ku qarinayay afkiisa. Waxaad arki kartaa sakiimihii oo ka muuqda koobka gudihiisa. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, haddii uu indhasarcaadiyuhu sakiinta ku soo riday koobka, xaggee ka imaadeen sakiimahan uu afkiisa ka soo bixina? Sakiimahan uu afkiisa ka soo bixina waa sakiimo hore loo habeeyay, oo ahayn sakiimo sax ah, waana kuwa u qaasa indhasarcaadiyaasha. Waxaana uu ku soo diyaariyay dhanka midig ee afkiisa, waxayna halkaa ku jireen waqti dheer. Haddii aad u fiirsatid muuqaalka, waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah sakiimaha oo afkiisa ka muuqdo. Markii uu rabo inuu afkiisa ka soo bixiyo, wuxuu sameynaa
inuu soo jiido duntii ugu xirneed, sidaas ayayna isku soo raacayaan midba midka kale. Ugu dambeyntii, waa maxay indhasarcaadka kaa yaabiyay markii aad daawanaysay muuqaalka? Nagula wadaag ra'yigaaga barta hoose ee kommentiga.